aniga waxaan rabaa hal su'aal baan idin weydiiyey su'aashii haday ardayda qarba ka jawaabtay laakiin aniga rabaa inaan jawaabta dhameystiro su'aashii idin weydiiyey waxay ahayd jaamacadaha meeqa dhigata meeqa dhameystay meeshan maxaad ka soo doonteen waxaad ka soo doonteen ma rabaa inaan idin sheego markaa ana rabaa inaan idin sheego jawaabtana inaan idin sheegaan rabaa intaas ay arrinteedu maanta ay ku soo dhamaan doontaa insha Allah meeshan waxaad u timaadeen qayb ka mid ah nin baa wuxuu yiri inaan horta anu isbarto awoodii Ilaahay gali intay la egtahay koow in aan qof noqdo unique ma taqa af Ingiriiska mutamayyiz ba af Carabiga la dhahaa qof dadka ka soocan inaan noqdo yani qeyrkay inaan la nooc noqonin ku aan jaamacadda isla dhiganay qof ka duwan oo ka hormarsan dadka hadda magaalada jooga ma isku level ba nin waa wasiir ku xigeen mid waa wasiiru dawlo mid waa xildhibaan mid waxa weyn oo midka shaah u keenkeena wixii uu hooyo ma wada dhashay Soomaha mid waxa weyn oo midka xaaqa midka furayaalka haya midka waa darawalka ninka haya oo maartii gaariga oo wasiirka soo waxayna mid waa askariga midka ilaalinaya dadka fiir waa dabaqaad ma arkaysa ilaa gurigiisa uu ka tago midka maartii albaabkiisa uu sii jooga kan marka waxaan rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba meeshan waxaad u timaadeen inaad noqotaan mujtamaca la nooshin dabaqada ugu sareysa hadalka marun ma mise ma aha ma waxaad rabtaan inaad noqotaan darawal inaad noqotaan ma rabtaan wasiirka gaadhi waxaysan ya askari inaad noqotaan ma rabtaan oo nin oo laba gaari mid hor ka socda midna gadaal ka socdo oo leeyahaysta oo maartii gaadhiga oo orday ka boodo kuwa inaad noqotaan ma rabtaan kuwa guriga ilaalma rabtaan geed kibar ma rabtaan hatta macallin iyo waxaas wali stiil siira dhaaf adiga dabaqada qof kasta wuxuu rabaa ninka ugu sareeya meesha uu ku nool mujtamaca qof oo afcari waxa dhayo shaaru ilaahi bil banaan hebel inuu noqdo ama hebla soo saas maaha baad maxaa si baad u yar hurdana ha ma isla socono aan macallin markaan waxa weeyaan tafaacul baa loo baahan yahay haday sidaas tahay oo qofku uu rabo qof unique nin la garanayo gurigooda laga garanayo xaafadooda laga garanayo jaamacadda laga garanayo soo waxaad fahamtay maaha mujtamaca Soomaalida hadhow laga garto Muqdisho hadhow laga garto oo hebel markii la dhaho aan lagu khalkhaldamin hebel markii la dhaho hatta aaba aan u baahanin in lagu daro shuruud yar baa loo baahan yahay shuruudaas intii badan horta waxa sheegay wadaadkii meeshan iyo labadanba way sheegeen oo waxa weeyaan edeb akhlaaq run dadaal warkayga maqlaysaa adiga markaad rabto inaad xaflad aadid wiiga ka hor horta soo dharka ma sii dhaqanaysid hadaad ku cusub baad soo gadaninba soo saas ma qofka aad rabto inaad noqoto waa inaad u sii diyaar garowdaa intaad wali noqonin ma jirto af Soomaali isku ma fiicnidine Soomaalidu waxay tiraahdaa guur isqolan faadhin ba koreys qofka markuu rabo inuu guursado maalmaha ka sii horeysa maartay oo arinta maagan yahay inuu si fiican u labisto dhar kolba muraad isku fiiriyo gabar haday tahay wiil haday tahay inuu isku toosnaado laakiin isagoo galuska ka go'an yahay midka saas oo timaa saas inuu guursan raba ma soconayso marka qofka aad rabtiin inaad noqotiin meeshan aad soo gasheen waa 4 bilood Soomaali ustaado waa 4 bilood ustaadka hore wuxuu sheegay akhlaaq iyo edeb iyo run iyo lilaahinimo iyo wadaninimo iyo waxyaalo fara badan ma sheego wanaaga ustaadkan wuxuu sheegay weelkii inaad la timaadaan nin walba weelku la yimaado hadii cunto hadda la doonto oo meeshaas waxa yaala maartay caano ninba weelkii wato ma loogu shubay hadaad 2 litir la tagtid 2 litir baa lagu soo buuxinay ku kala 5 litir la tagay waa loo soo buuxiyay ku kala 10 la tagay waa loo soo buuxiyay kuwa foostala tagay 200 litir meel baad la wada timaadeen markii horena xagga aadaa la yiri meeshan markaad ka baxdaan hadhow ku 5 litir wata ku 10 litir wata ku 200 litir wata marka weelkii waxa la idinku shubi lahaa weel nadiif ah oo dabada ka duleelin oo maxaan ku dhaan wax daadineenin oo meel la qabsada leh waa inaad la timaadaan commitment hal maalin inadaan maqnaaneen akhriskiina inuu bataa hal kelman ku soo khatimi oo taasa idinka waxaad rabtaan inaad noqotaan waan sheegnay inaad isa soo jafjaftaan waan sheegnay hal assignment baan laakiin idin siini oo weekend markaan soo imaanay markaan duruus leeyahay iyo waxa la dhaho positive thinking inaad la timaadaan positive التفكير الإيجابي بقى في عربي الوضعها
adduunyadan inay wanaagsan tahay magaaladan inay nabad noqon doonto annaka inaan wax baran doono horumar in la gaari doono adigu qof wanaagsan inaad noqon doonto dadka inaad anfici doontid wax kulli wada wanaagsan maskaxdaada moosha inaad dad xamanin bani aadanka meesha laga xukumo waa maskaxda ama waa qalbiga midkaas rada labada way isla shaqeeyaan meeshaas inaydan iska wasakhaynin oo maxaan ku dhahaa dustbin kama taqaanaa dumpinka meesha wasaqda lagu guro dad ha ku xamanin ruux ha ku caynin xasad faraha ka qaad adi qof positive yani tabasum wajhi akhika sadaq wa nabigu dhahay marka qofku ka horimaado adoo muusoonahayo markii lagu arko dadku waa inay farxaan adi maaha markii adi lagu arko dadka kale waa inay farxaan abaha waa inuu farxaa hooyada waa inay farxda walaasha ilmaha naxariis ilma dadka ka yar waa inaad u naxariistaa ku positive thinking baan isku ognahay maxaan isku ognahay buug baa laga qoraa positive thinking way fara badan yihiin laakiin siba idin sheegay nin baa wuxuu yidhi qofka maarta markuu weysaysto weyse qabo intaad weyse qabto ma tukan kartaa soo maaha haddaa masquul gashana weyse kale aad u baahan tahay nin baa wuxuu yidhi positive thinking buug baan arkay hadda aniga sidaas qofkii wuxuu dhahay 7 beri inuu yidhi baan u malaynaya 7 days in ahayd baan u malaynayaa adii maalmay ahayd laakiin bal 7 ka soo qaad 7 beri iyo 5 midkaad ma garanayo ninkii positive qofkii la imaada buu dhahay oo negative thinking iyo negative aad garanaysaa soo maaha wallahi meeshaan ay taniyo lacagtan bixinayo waxaan islaama bay ka waqtina way laga lumanaa ninka inuu positive thinking ninka inuu weysada ka burin buu dhahay maalmahaas la sheegay ama 7 beri ama 8 ama 9 wax wanaagsan yani fikirkiisa uu ahaado wuxuu dhahay aniga I will guarantee for him buu dhahay inuu qofkaas successful inuu noqoni qof nolosha ku najacay laakiin haddaad hadhow aad tiraahdo waraa kii khaanka markaysay way ka burtay haddana waad soo bilaabay haddaad tiraahdo tii xumay maartay tii aan suuqada ahayd mid beli taagnayd markaysay finish positive thinking dad xamanina waxa xadina wajhi macbuus ha noqonina maxaan ku dhahaa nolosha aad ku socotaan inay intaad saa u fiirisid adoo gabar qurux badan guursaday gaar qurux badan wata meeshan ugu sareysa dhinacaasha laga ordahay ma garanaysaa hebel baa magaalada imaanaya leeyahay naagu hay mashxaradaan waxaasun isu sheeg